السلام عليكم إن بدنو إذن كمدي waxay iga codsadeen inaan soo celiyo barnaamijyada xidhiidhada ku saabsanaa ee aan soo gudbin jiray haddaba caawa mawduucan aynu qaada dhigi doonaa ee ku soo dhawaada jacaylka haweenka kuma xidhna oo ragga kuma xushaan dharar midab ama qurux balse waxa jira arrimo si gaar ah oo cajabiya oo ay aad u jecel yihiin inay ku arkaan wiilasha gayaankooda ah kuwaasoo haddii uu ninku yeesho uu qalbiga gabadhu u nuglaanayo isla markaana ay kalgacayl u qaadi karto dhammaan waxyaabahaasina waxay ku tacalluqaan muuqaalka ninka hablabiskiisa iyo sidoo kale dabeecadihiisa iyo habdhaqankiisa waxaana ka mid ah 6 astaamood ee aynu mawduuceena caawa saldhigga uga dhigi doono astaanta koowaad nadaafadda gabadha ama inantu waxay aad u xiisaysaa inay gayaankeeda ku xulato inuu noqdo nin nadaafad badan oo jecel dharkiisu inay bilic leeyihiin waxaanay badanaa ka eegaan dhinaca cidiyaha inuu nadiifiyo isla markaana dharkiisu ifayaan taasina waxay suurto gelinaysaa in gabadhu ninka astaantan ku sifaysan u qaado jacayl iyo kalgacayl rasmi ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee raggu dareenka gabadha ku soo jiitaan waxaa ka mid ah inuu noqdo mid wejigiisu furan yahay oo qosol badan aan lahayn sababtoo ah waxay dumarku aad uga baqaan ragga aadka u cadhada badan ee badanaa murugada wejigooda ka muuqato sidoo kale waa inuu ninku yahay mid aad u udug jecel isla markaana naftiisa koolkooliya oo markasta iska dhalaalaya oo nadaafadu ka sokayso gabdhuhu waxay aad u jecel yihiin ragga la qosla ee xataa haddii ay khalad ku sameeyaan u dulqaata sababtoo ah waxay aad ugu nugul yihiin baqdinta iyo inay dareenada ka qaataan muuqaalka guud ee qofka astaanta labaad deganaanta ragga degani waxay aad u fahmaan dabeecadda dumarka waxaanay si fudud ku soo jiidan karaan qalbiga gabadha sababtoo ah gabdhuhu waxay qofka degan ku qiimeeyaan inuu yahay mid nolosheeda kafaalo qaadi kara isla markaana si fudud u fahmi kara kaligeedna ku koobnaan kara maadaama ay gabadh kasta dhimasho ka xigto inay nolol la wadaagto ninka shabeelnaagoodka ah ama dumarka eeg halka qofka dulduulka badan ay ka shakiyaan dabeecadihiisa isrogrogi kara ee uu ku soo jiidan karo dhigeeda tanina waa sababta ay ragga degan ku jecel yihiin waana sababta gabdhuhu uga siman yihiin astaantan astaanta saddexaad hubqaadkiisa ama inuu xidho labis qurxoon gabdhuhu waxay aad u qiimeeyaan oo isha la raacaan ragga labiskoodu quruxda badan yahay gaar ahaan waxay jecel yihiin xidhashada dharka casriga ah ama kuwa dhexe ee wakhtiga taagan la jaan qaadaya labiska quruxda badan ee soo jiidashada leh wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ka dhex guuxa quluubta haweenka isla markaana ragga ku soo jiidan karaan dumarka gayaankooda ah markaa waxaan inamada leeyahay aad ugu dadaala inaad astaantan ku sifowdaan oo samaysaan maadaama uu gabadha dhankeeda lama taabtaanka yahay astaanta afaraad dareensii inaad danaynayso gabadha dumarku waxay si joogtaa u hubiyaan in la jecel yahay lana danaynayo waxaanay ku tijaabiyaan in markay hadlayso ay sheeko wado inuu si fiirsila sheekadeeda u dhageysanayo oo aanu marba wax ku mashquulin ama aanu isdhaafin hadalkeeda sidoo kale amaawiirta jacayl ee ay farto uu qaato markay wada joogaanna ka ilaaliyo dhibaatooyinka una muujiyo naxariis iyo danayn saa'id ah haddii ay arrimahaas ka weydo gabadhu lamaanaheeda waxay iska dhaadhicisaa inaanu wax dana ka lahayn haba yaraatee waana dhibaatada haysata rag badan oo aad u adag oo ay ka dhaadhacsan tahay dumarka lama daneeyo lama baashiro lama koolkooliyo siday sidaa ugu dhaqmayeenna ay naxariistu ka yaraatay kadibna dumarkoodu ay ka yaacaan xataa iyagoo jecel astaanta shanaad qosolka ama dhoolla caddayntu waa mid ka mid ah arrimaha aadka u xiisaha geliya dumarka da' kastoo ay jiraan sababtoo ah waxay halkaas ka dareemaan naxariis iyo in qofku u bogay waxaana waajib ah marka gabadhu eegto ninka inuu ku qaabilo weji farxad leh oo dhoolla caddaynaya taasina waxay kor u qaadaysaa soo jiidashadiisa dhanka gabadha astaanta lixaad ninka fahma ee keliya dhegaysta wax kale ha samayn fahan oo dhegayso ma og tahay gabadhu xaaladaha qaarkood inay u baahan tahay keliya nin dhegaysta oo fahma intaanay hadlin ka hor waayo dumarku way iska marxalada badan yihiin markastana waxay u baahan yihiin qof ay agtiisa xasilooni ku dareemayaan isla markaana ay ku nafisayaan oo aan dhibsan wax kasta oo ay kula hadasho waxaaba laga yaabaa xataa ninkan haddii aanay dan badan ka lahayn ama ay habdhaqano badan oo ay ku diidan tahay jiraan inay ku dooran karto keliya inuu yahay qof fahma isla markaana dhegaysta markay hadlayso waayo gabadhu markay ka hadlayso dhibteeda uma baahna in tala la siiyo ama xal lala raadiyo ee keliya waxay u baahan tahay in la dhegaysto oo ay hesho meel ay ku nafisto oo caqabadaheeda iyo culeysyadeeda ay ku fudaydiso waana sababta ay gabadhu u jeceshahay
kaliya in la dhageysto oo la fahmo. waxaaba laga yaabaa marxaladaha qaarkood inaanay gabadhu u baahnayn in tala la siiyo ama lala taliyo ee ay kaliya u baahan tahay in la dhageysto oo si dhugmo leh warkeeda loogu fiirsado. gabagabadii waxaan rajaynayaa 6 qodob ee koobkoobani inay wax badan ka bedeli doonaan aragtidii hore ee dhalinta maanta ay aaminsanaayeen. nabadgelyo.